مدن رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre وزيرك وزارة gaashaandhigga mudane danjire Axmed Macalin Fiqi wasiirka wasaaradda amniga mudane wasiir Fartaag xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu ugu horeeyo guddiga difaaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaasha noocyada ciidamada kaaliyaha taliska guud taliyaasha talishada maamul madax hogaanada dhammaan saaxiibada beesha caalamka ee halkan fadhiyo dhammaan saraakiil xigeenka alifleyda dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan marti sharafta bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane marweyn salaan kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina ka qiro inaan aqbalay mas'uuliyadda weyn ee la igu aaminay ee ah inaan hogaamiyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah gaashaanka ilaaliya karaamada sharafta madax bannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sidoo kale waxaa farxad ii ah inaan xilka kala wareego maanta taliyooda Yuusuf Raage oo aan la soo shaqeeyay labadii jeer uu hogaaminayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anoo xilal kala duwan haya tani waxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah u tahay ama uga dhigan tahay fursad dahabi ah oo lagu tijaabinayo tayada iyo hanaanka maamul ee jiilka cusub ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan ku kalsoonahay waxqabadkooda shaqo haddaba mudanayaal iyo marwooyin waxaa hubaal ah in mas'uuliyadda ay tahay mid culus kuna soo beeganta waqti adag una baahan dhammaanteen inaan iska kaashano difaaca qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka kuna bixino naf iyo maal sidaan dalkan looga difaaci lahaa cid waliba oo khatar gelin karta amnigiisa horumarkiisa iyo siyaadadiisa saacaddan aan joogno dhammaan gobollada dalka ciidamo Soomaaliyeed ayaa kula dagaalamaya cadawga argagixisada kuwaasoo fagaaraha dagaalka ka muujiyay geesinimo hal adayg waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan iyo duco wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee doortay naftooda inay u huraan si ay u difaacaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed mudan ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa inay u ogolaatid sidoo kale inaan halkan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu gudbiyo fariin ah inay yihiin geesiyaal dhab ah hal adag oo aan cashir aanan la ilaawi karin mar waliba u dhiga cadawga ummadda Soomaaliyeed ee dalkan diidan horumarkiisa waxaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxaad tihiin gaashaanka ummadda Soomaaliyeed ee hortaagan cadawga wax magaratada ah ee aanan lahayn wax diin iyo dhaqan toona kuna dhisan afkaar qaldan waxaan hubaa inaad baabain doontaan dalkana aad idinka u hari doontaan mar dhowna aan insha Allah huwan doontaan taajka iyo sharafka cisdiga guusha insha Allah kadib la wareegidda mas'uuliyaddan waxaan sii xoojin doonaa dadaaladii horumarineed waxaana markasta awood isugu geyn doonaa sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu noqon lahaa ciidan magac ahaan iyo awood ahaan ka dhex muuqda caalamka anigoo kaashan doono walaalahay saaxiibaday saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta aan xafiiskan aan maanta la wareegayo joogo waxaan ka shaqeyn doonaa sare u qaadista tayada dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isugu jira maamul iyo howlgal intaba anigoo ku soo koobi doono qodobadan hoos ku xusan waxaan xoojin doonaa nidaamka isla xisaabtan ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kor u qaadista tayada iyo awoodda sirdoon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan xoogga saari doonaa dhismaha iyo tayada talisyada noocyada ciidamada iyo taliska ciidanka gaarka ah si kor loogu qaado awoodda howlgal ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la dagaali doonaa isticmaalka maandooriyaha iyo wax waliba oo lid ku ahaanshaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka shaqeyn doonaa sugidda tirada iyo tayada ayadoo aan si dhab ah u sii ambaqaadi doono dib u habeenadii la sameeyay ee halkan lagu xusay insha Allah waxaan ka shaqeyn doonaa sidoo kale oo aan xoogga saari doonaa sidii loo heli lahaa qalab iyo agab tayo leh sidoo kalena ay ku midaysan yihiin guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay uga muuqdaan saaxada caalamka waxaan xoogga saari doonaa sidii loo heli lahaa
tababaro midaysan iyo xirfado hoggaan sare. waxaan ka shaqayn doonaa sidii agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen daryeel la mid ah carruurta kale iyadoo waliba mudan ra'iisul wasaare qodobkan dhowr jeer oo hore loo ballan qaaday laakiin ilaahay waxaan weydiisanaa inuu garab igu siiyo fulinta hawshan muhiimka u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan ka shaqayn doonaa mudan ra'iisul wasaare sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga qayb uga noqon lahaayeen awoodda wax soo saar ee dalka anigoo kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga iyo dhammaan hay'adaha kale ee qusayso. waxaan sii wadi doonaa dhamaystirka nidaamka maamulka hantida iyo personaalka ee casriga ah si loo gaaro hannaan daahfuran oo cadaalad ku salaysan. mudan ra'iisul wasaare waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyo geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe si isdaba joog ah u gaaraya guulo muhiim ah ayagoo muujiyey geesinimo, adkaysi, daacadnimo iyo nafurnimo. waxaan idin leeyahay guusha wax yar ka dhiman waana ka guuleysan doonaa cadowga kusoo duulay jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed. Allah subxaanahu wa ta'ala garabkeena ha ahaado. waxaan rabaa inaan halkan xuso shuhadadii ku shahiiday halganka lagu xoreynayo dalka. waxaana leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala ha idinka aqbalo shahaadadiina. sidoo kale waxaan u duceynayaa daljirayaasha ku dhaawacmay howlgallada xoreynta. waxaana leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala ha idin booga dhayo annagana waxaan taagannahay garabkiina. mudan ra'iisul wasaare waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahadceliyo waalidiinta Soomaaliyeed oo si nafhurnimo leh ugu hibeeyay awlaadooda qaranka si loo difaaco midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. intaas kadib mahadoo dhan Alle u sugnaatay subxaanahu wa ta'ala oo suuro geliyay inaan halkan soo gaarno. marka xigta waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo taliyadooda Yuusuf Raage taliyaha xilka baneynayo ee aan uga mahadcelinayo dadaalkiisa iyo juhdigii uu geliyay dhismaha iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kalena aan uga mahadcelinayo muddadii aan soo wada shaqaynay sidii wanaagsaneed uu inoogu hogaamiyay gaarista yoolal iyo guulo maanta la gaaray. taliye waxaa tahay mid inaga mid ah waxaana markasta tusaale nool u noqon doontaa sarkaal kasta oo dhalinyaro ah oo xilkan aad banaynaysa maanta qabto. ugu dambeyn mudan ra'iisul wasaare waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xamse Cabdi Barre fursadan dahabiga ah ay siiyeen iguna aamineen mas'uuliyadda culus taas oo isiinaysa kalsooni, dhiiranaan iyo ka go'naansho inaan si daacad leh ugu adeego difaaca qaranka anigoo kaashanaya saraakiisha sharafta leh ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wadajir ayaan u jibin doonaa argagixisada, wadajir ayaan u soo celin doonaa nabadda iyo xasiloonida guud ahaan dalka, wadajir ayaan u ilaalin doonaa madax bannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed. ilaahay ha ilaaliyo ciidankeena, ilaahay ha xoojiyo awoodda ciidamada qalabka sida, ilaahay ha barakeeyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.